halkani waa Gaacir Media dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan barnaamijka wixii cusub ee Gaacir Media barnaamijka wixii cusub maanta waxaan idinku soo gudbin doonaa waa maxay dalka haatan ku soo wasaaradda caafimaadka waddanka Qobrus ayaa sheegtay nooc cusub oo la yiraahdo Delta Cron. noocan ayaa ka kooban noocyadii koronaha ee hore sida Delta iyo Omicron, sidaas ayaana Delta Cron loogu bixiyay. Safarkan Delta Cron waxaa kale oo loo yaqaanaa B16402. Delta Cron waxaa laga helay bukaanno laga daweynayay koronaha ee dalka Qobrus, waxayna saynisyahanadu heleen 25 kees oo ka mid ah Delta Cron, sida lagu daabacay majalada Forbes. magac bixinta Delta Cron waxaa bixiyay saynisyahanka la yiraahdo Leonidas Trikis, oo ah professor cilmiga biologiga ka dhiga jaamacadda Qobrus. saynisyahanada qaar ayaa ku doodaya in Delta Cron aan la oran karin nooc iskaafiya oo ka mid ah koronaha, balse uu yahay nooc ka mid ah contamination kaasoo kasoo gudbay ama ka yimid dhinaca shaybaarka. ayadoo sidaa tahay, weli saynisyahanada ayaa baaritaan ku wada Delta Cron iyo waxyeeladiisa si loo ogaado. dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta